banaadir hagen jacaylka bajaajkana hay ka saarin bankiya qaraxa dhacaya bilaahi waxyeelin ninkan xuseen shire ah cadaawadda uu xamar u qabo ama muqdisho mid caadiya maaha. banaadir hagen jacaylka bajaajna hay ka saarin bam iyo qaraxa dhacaya heestaas waxaa soo qaaday xuseen shire social media wuu holcaya dadkii dhan oo reer muqdisho xuseen shire ku kaceen ayagoo dhahe horumarkeena ka xunta mar allaala iyo marka uu soo baahdo oo calooshu soo buqotaba banaadir oo kusoo kala qabta uqdad iyo cunfi iyo waxaa muuqaalka ku eegi doona kooxda qayladaan iyo reer muqdisho maxaa kala haysto yaa qaldan si cadaaladu ilaahay noo ogya ayaa muuqaalkan ku fiiri doona iyo jawaabta fanaaniinta reer muqdisho ee ah horumarkii xamar gaartay ninkii xaqirayo ha heeqo حسين شير هستان ما مقتنع عيب كتاب بس واحد كتاب أنا كل وذاك دونا سو دبعوا وهري مقالك والله كلا جنلك سكايب سر غيرتكم التجرا يجينا إلى بينه مقال كان لايك بدنا جالسين مقالكم يرسلوا وجارو ويا هي أنت مقالك بلا كور بوجي هذه الشيء جاي أو صوص سعر ولا الكعيس أو صوب حياة 4 سبتمبر مالين جمعة قيبتكم وضح وكهذا بوجا سي تاريخ ذا waxyaabo badan oo laga qariyay oo ku saabsan adduunkan waxyaabo ka dhacay dadkii ka dambeeyay iyo waliba dadka faqiirka dadka taajirka oo noolaan karaan waxyaabo badan oo ku anfacay aan soo koobi karin qaybta labaadna waxa uu ka hadlayaa islaamka kaliya bilowga ilaa iyo nabiyadii ilaa iyo hadda iyo diinta sida Soomaaliya u soo gaartay linkii qaybta hoos ka raaca insha Allah soo dhawaada marka leeto muuqaalka waxa ku eegaynaa ninkii Xuseen Shire ahaa reer Muqdisho isgaashiin xalayto ilaa iyo hadda wax la isku reebanayo male reer muqdisho waxay leeyihiin ninka waa cunsuri waa nin mutaqaana xamar nacab waa nin uqdo heesan waxa ay ku haystaan hees uu soo qaaday oo ku leeyahay banaadir haygeen bam iyo qaraxa ka dhacay horta heesta ay ka xanaaqeen reer muqdisho aan eegna bal haye banaadir hagen jacaylka haye bajaajkana hay ka saarin bankiya qaraxa dhacaya haye bilaahi waxyeelin banaadir haygeen jacaylka bam iyo qaraxa dhacay bilaahi iyo san waxyeel noo geysan wuxuu leeyahay muqdisho bam iyo qaraxa ka dhacayo ee jacaylka hageed marka la igu celi banaadir hagen jacaylka bajaajkana hay ka saarin bankiya qaraxa dhacaya bilaahi waxyeelin markii ereygan uu ku dhawaaqay ninkii ah Xuseen Shire uu dhahay banaadir haygeen bam iyo qaraxa ka dhacaya bajaajna hayga saarin durbadii waa dadka reer muqdisho ku kacay ayagoo dhaniyahow qarax ma aragna anaga nabada heesana maxaa ka qalad maxaa u dhahaysaa banaadir hagen jacaylka bajaajkana hay ka saarin bankiya qaraxa dhacaya bilaahi waxyeelin ninkan xuseen shire ah cadaawadda uu xamar u qabo ama muqdisho mid caadiya maaha waa ku sababeynaya taas ninkan horta maanta markii uu waayay qarax uu ku suuroodo masiibo dhacdo oo hees ka soo sameeyo waxa uu marayaa inuu jacayl u soo dubaraaco magaalada muqdisho isagoo iska dhigaya inuu qaadayo hees jacayla ayuu wuxuu muujinayaa dhinaca kale in magaalada muqdisho ay tahay meel qaraxyada bambooyinka iyo masiibooyinku ay si joogto ah uga dhacayaan wuxuu leeyahay erayada uu soo qaadana kamid ah ha geynin jacaylkayga xamar ha geynin jacaylkayga banaadir bajaajna hayga saarin qaraxa iyo bambooyinka dhacayana yay iga halaagin ilaah baa idinku dhaarshay ma muqdisho ayaa maanta qaraxyo iyo bambooyin dad halaaga ka jiraan miyuusan awoodin inuu hees ka soo qaado erayo ka wanaagsan kuwa uu maanta muqdisho tusaalaha ugu soo qaadanayo muqdisho waa soo martay xilli bam iyo masiibo iyo qarax tusaale loogu soo qaato laakiin maanta alxamdulillah waa magaalo caalamka oo dhan xitaa Soomaalida kaliya maaha caalamka oo dhan uu tusaale ugu soo qaadanayo magaalo soo kabanaysa magaalo soo iftiimaysa magaalo rajale oo quruxdeedii iyo bilicdeedii dib u soo laabanayso nabadgelyaduna ay soo hagaagayso waa tusaalaha maanta magaalada muqdisho warbaahinta dunida oo dhan ay ka qorayaan caalamkuna uu ka bixinayo haddaba magaaladii sidaas ahayd ayuu wuxuu rabaa inuu nooga muujiyo ama uu hees jacayl u soo dubaraaco isagoo sheegaya in masiibooyinka qaraxyada iyo bambooyinku ay si joogto ah u dhacayaan oo uusan mudnayn inuu qof jecel yahay oo tago muqdisho taasi waa nacayb heerkii ugu sareeyay ninkan horta waad wada ogtihiin wuxuu ku soo caan baxay muddaxileedkii hore ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud
inuu nuuc kasta oo qaraxa ka soo heeso miinada dhulka lagu geliyo xataa qaraxu heesoo kusoo sameeyey haddaba 5 sano iyo bilooyin oo maxamed cabdullaahi farmaajo uu joogay ninkan lama arag meeluu hees kusoo qaada lama arag wax xitaa masiibooyinka ugu weyn ayaa dhaca waad ogtihiin qaraxyadii zoobe ee kunka qof ka badan ay ku dhinteen ayaa dhaca juuq ma dhihin afkiisa ma kala qaadan inuu hees sameeyo iska daayo markii la weydiiyana wuxuu iska soo jaray waxaa naga xanuunsanaa muddadaasi allah u naxariistay abwaankii kooxda ilaahay ha caafiye abwaankii kooxda joog la shire laakiin markii madaxweyne xasan sheekh dib loo doortay isla markii waa soo laabtay dib uu soo bilaabay heesihiisii waa ogeedeen heesuu kusoo sameeyey madaxweynaha uu leeyahay birmada la baxda laakiin madkii dhallinyaradii allaysa iyo waxyaabo lamida isagoo dagaalka al-shabaab ka hadlayo maanta haddana wuxuu marayaa inuu jacayl usoo tubaraaco magaaladii caasimadda ahayd ee muqdisho isla markaana uu iska dhigo nin wanaag ka hadlayo dadkana uu hees jacayla uu qaadayo camal laakiin abti nama gaadi kartid waa kaa diidnay waa hees sawir xun ka bixinaysa caasimadda waa hees dulmi ah mana la aqbalayo la laaban ku leena adigu maxay kula tahay horta kooxdan qayladaan xuseen shire oo hogaamiyo maalmaha dhan xashiiq u kacsanay xataa waraysi laga qaado arki doonaa oo heese badan soo qaaday waa kan isagoo leh waxba dal xurey ha iska dhigin hadday shalay qaran biliyo birmada ay ku baxsheen balaayani maamuliyo waxaa tahay baasabu hogaankana baylasho dalkii buur hadimayo barin laga guurayo horaan baad kala dhacdeen horaan baad kala dhacdeen horaan baad kala dhacdeen horaan baad kala dhacdeen ankara looma tegin bilaash shirki baarliinka daran go'aankii ka soo baxayna badid baad ku meeriseen berigii waad iibsateen beriyo xibnooma hadhin dayartii way baaba'do bulshadii waad kala dirteen dayartii way baaba'do bulshadii waad kala dirteen maadaama markada xashiiq uu kacsanaa muqdisho soo dara marka waxa la eegaynaa marka intaan fiirin ka hor xuseen shire waxaan munaafaqad may ka tahay ma wax kale ka tahay jawaabta fanaaniinta reer muqdisho horumarka xamar gaartay ninkii xaqiraayo libinta ka xasdaa xaqiiqo heestan waxa la leeyahay kooxda qayladaan oo heesa badan soo qaaday ku socota asal ahaanba xuseen shire ku socota xuseen shire markii inuu hadda oo dhow muqdisho ay keen bam iyo qarax ka dhacay kuwaan ula jeedaa oo waliba heesta ereedeeda qaybtana ka siimida fiir haye anagu kama xiisna muqdisho muxumeena maxoori kareyno haye وما كله حد والبا صح حريري ويا صح horta xuseen shire haddii heestan ay ka tahay muqdisho nacayb total ku qalday waxa ay hayaan xuseen shire xashiiq waay oo macaariday ee muqdisho ma aha haddii marka niyo muqdisho nacayb ay ka tahay xuseen shire ma wacneen ma fiicneen saan laga fiicnaa muqdisho waa caasimad qof kasta oo Soomaali ah iska leh waa meel Soomaalida ka dhaxayso marka inaa caysid ma aha oo qarax ku tilmaamtay laakiin isaga uu soo hadlay wuxuu leeyahay igama aha muqdisho nacayb ee magaalo kasta waxay caan ku tahay sheegayo dheh ereyada waxa ku soo jira baar dheer ee Kismaayo ka sii hadlaya meel badan wuxuu leeyahay marka meel kasta wixii looga bartay ayaan ka ula jeedaa sidaas uu leeyahay kooxdan ayagana qayladaan u jawaabayaan fiiraad بريال الله أكوانه ما تسوي برارجة قيلان يستعيلين كواحد قيلان وحسين شروه جامية ما المدنا الله ما تسوي برارجة واكل حسين شروه سوي إيش وهاي فنان تاس أوله أنا يصو صارني كوا أنه معناها يو شن أرينتي قرآن أنه صو صارنا وشن أرينتي قرآن أنه بحجرني بان قاركود أرينا يو هسا أنه سويني لوجس جوابي يعني أرينا حتى قفكا وادتك أدو سمين سرتين وادتك
ودكي معناها أنا العوين ستين ما أن كليه قف كإله هسو طبعا اللي يراه قار واحد كذا بالبلوء وصح إرجيس الله هاي إرجان كانوا غلط كانوا صح كان وحنا أضرب الرئيس أنت عندك كم قتنا قلي كل مرة يوم هيسي ودرجة قام نقص ضرب قاضي هيسي جواب أيام معك مركو وابا كفر أحسن إلى أبونا صور نقدين لكن أنا بوحنا أمسنا خفكم مركو فنك قفك أبوان كاهي وكسينيا هستي لحكي وكسينيا موسيقى وكاب حيا لقى يابا رجل يلو كوسة حلقة يابا حول ما سينيسي لكن وإن هذا المينا حتى أدو خلدين حتى وين أتكلم حتى هدي حتى أو خلدين حتى وين أتكلم حتى سمعته أدو وحموك صوتا مركب وحياة صوب بدن باكرة مقلا مركب وحلا هاي لأن يرى هالرسبكت هالسيين ضدك فنك رنتي إنها صوفري وأنا أرجني سيدا أيين هذا أنو أنا واي حسين إمك هدي حسين هانو أديك فنك قعنت أبو صار له والله وحكبدل وأنا كسو كردي حد كبدل لي محد نكسو كردي لي والله سؤال شاسيني هو السؤال هذا أقول واي كودي واسكال على عوكا وحوي ورسني الله نعرسنين جزاء لا نعرسنا كراد اي وحوي سير هدي العقل لو سين لها حق دقي لهي مركا حدا واتيو لي بدلي وحي والله نيو انا waxaan dhilaa wixii qariban oo runtii aan ku qurxoonay fankana laga saaro fankana awood ha loo yeero sababtu waxa weeye ma ahan in qof loo jeedo ama gacan ku dhigla ama ummadda dhibaateeyay inaad hees ku amaantood u qaado oo micnaha u qaado waa inaad fanka runta ka sheegto haddaad laakiin $100 baa lagu siinayaa iyo ammaan $100 baan sidaa yeel oo ku shubasho oo loo jeedo fankiiba been looga sheegaya marka fanka beenta ha laga daayaan dhilaa اوكي فنكن اسغا يمكا لا قبيالديو ee heesaha qabyaalada la isugu qaado isaga maxaa la dawa wax ka ana hore oo qombo way hadda barkaysa reer hebelkii baladaha iyo fanaanka ku yeesayo reer hebelo ajiibka ahayo sidaas ahayo saas aha almiir gabar wala amaani kara saan amisanay magaalay ku dhalatay ee ku soo kortay wala dhii kara laakiin reer hebelkii baladaha in fanaan ku yeeso hadhowna uu heeso wadaniga noo qaado waxa dadka hadda ugu badan oo special waliba Soomaaliya dhexdeeda jooga marna waxay qaadayaan heesii qabiilada marna hees wadaniga qaadayaan wala isma raacad waa dab iyo waxa wadab baasiin way la isku ma dhufta kala dhowraa way suurta gal ma noqonaysa inaad reebel u haysto kadibna hees wadaniga aad u haysto aad ku tiraado wadani baan iska dhigaya ma soconaysa fankayaan laga bay sheegin horta xaalad waa taasa social media hore cayaab xuseen shire dhinaca kala daayagna marka ninka rag lama xaqiree waxaa jiraan heeso badan oo baraarujina oo ciidamada xoogga u qaaday heestana kamid ah 2013 ayuu ciidanka xoogga dalka u qaaday waxa ka fiirina bal wadani dhaarta صح هي عجيب هي ايه صح ايه marka kuleeyahay markada qofka hal xumaan luma naco Xuseen Shire horta Muqdisho wallahi iyo ciidanka xoogga waa amaanay laakiin hadda siyaasadii aan tala xumaato xamar wax ka sheegay markaa kuma taageersan inuu dhaho Muqdisho qarax iyo balaaya kala haygeyn Muqdisho amni lisma xaqiro Muqdisho wax ka dhaco yaani mar ugu dambis wallahi ma arkin Muqdisho wax ka dhacay maalmaha dhima amaan arkinan marka odayga halo imaamadu wax ka dhacday ku qaat ila daawada bal imika Xuseen Shire oo ka warmay sababta hashaq weerareen heesta qaylaan ay soo qaadeen ficilka ka dhashtay marka dhameystin daqiiqad kuma tiin muuqaalka hal laba wax ka dhac dadku waxay leeyihiin ma jirin heesta dhaliil ah oo ay kooxda qayladaan soo saareen xilligii dawladdii hore maxaad la aamusteen mise waxaad leedahay ma jirin dhaliilo iyo xaalad aan heesta u soo saarno dadka hadda qabyaaladda lagu tilmaamaya waa runtii waa dadka aan u doodayna dad ka mid ah dadkooda waxaana laydinku eedeeyey Xuseen inaad tihiin koox sugaanteeda qabyaaladaysa
oo xilliga ay soo saarayaan iyo waqtiga ay ku aadinayaanba iyo shakhsiyaadka ay dhaliilayaanba ay tahay mid qabyaaladaysan maxaad uga jawaabaysaan arrintan aniga dadka heesta ila qaadaya anigu isku reera ma nihin waa dad kala nooc oo Soomaaliyeed nahay ma garata dadka dhaliilay heestan hadda aad soo saarteen ee weliba tixda ka qoray waxaa ka mid ah abwaan guure oo aad isla tihiin bahda suugaanleyda Soomaaliyeed sideed u aragtaan tixda uu idinku dhaliyo waad mahadsantahay horta markuu ugu horeysa heestu ma ahan hees la iska waxaan wax la iska malawaalo la iska qarboobiyo waxna waa wax sida ay yihiin ah heesta waxaan aaminsanahay dhaliisha dawladdu ay leedahay ayay tilmaamaysaa hogaankay sheegaysaa taasay sheegaysaa ay ku saabsan tahay dawladdu waana la ammaani karaa waana la dhaliili karaa dad ammaana way jiraan annagu dhaliisheeda ayaa runtii ayaa bannaanka timida noo soo baxday sidaasaanu runtii heestu lagu sameeyey oo ay ku sameeyeen ru'aantii fanaaniinta iyo abwaanada Soomaaliyeed oo meel kasta qaarba meel jooga marka runtii waa dhaliishii aan runtii intii dawladdan ka aragnay way marka erayada aad adeegsateen maslada Xuseen waxaa la heli karaa erayo kale oo ka dabacsan kuna muuji kartaan dhaliisha aad u jeedinaysaan hoggaanka dalka runaantii horta ay heestu ma ahan oo aytan wax la yiraahdo kuma jirto suugaantana la iskuma caayo laakiin waxa weeye waa sida ay tahay ayaan aaminsanahay oo runtii ah biyo kama dhibcaan ah oo hadba jaranjaro ah oo jaranjaro laga bilaabo afka ilaa meesha ugu dambaysa waxa weeye waa runtii intuba waa dhowr waa 6 qaybood oo misideeda oo runtii mid kastaba tilmaamaysa waxa meesha wacyiga iyo dhibaatada hadda ka jirta Soomaaliya tilmaamaysa way oo runtii aan isleeyahay sidii ku haboonayd ayaa lagu ayaa runtii ayay heestu ku soo baxday way waad ogtoo falcelin kala duwan ay heestan bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ka abuurtay waxaana la idinku eedeeyay Xuseen inaad tihiin koox suugaanteeda qabyaaladaysa oo xilliga ay soo saarayaan iyo waqtiga ay ku aadinayaanba iyo shakhsiyaadka ay dhaliilayaanba ay tahay mid qabyaaladaysan maxaad uga jawaabaysaan arrinta markuu ugu horeysa anigu waxaan horta ku leeyahay warkaas horta waa waxa kaba jiraan oo waa runtii qofka markuu doonayo inuu siyaasad iyo wax galo ayuu dawlad islugta ku martaa anigu nin waxaan ahay samafalo u ah ummadda Soomaaliyeed hooyada dhibaataysan joogta Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ooyeysa cagafka dabada laga gelinayo ninka meydka waa hore la aasay cidoodu ka samartay xabaalaha banaanka loo soo dhigayo sidii dawladda Itoobiya inaanu leenahay bad inay naga dhaxayso oo xuduud badeed aan leenahay in la yahay Soomaaliya iyo Itoobiya ka wada hadlaysa badda Soomaaliya ka wada hadlaysa oo mucjiso nagu noqotay haddii laba wadani bad ay isugu darsan tahay badda anaale iyo anigaale waa dhigi karaan laakiin wadan aan bad lahayn baan badii ka wada shiraynaayo ka heshiinaynaa iyo wax la mid ah marka waxaan aniga aaminsanahay dadka hadda qabyaaladda lagu tilmaamaya waa runtii waa dadka aan u doodayna dad ka mid ah dadkooda way markii runta laga hadlo aan isleeyahay waana dadkaygii dadku marka waxa weeye waxa la yiri Nabi Muuse ayaa wuxuu arkay baa nin doqona oo nin raranayo markaasuu wuxuu ku yiri wariyaa ninkan maxaa u raranaysaa ninkiiba marka la falagaadi way isdileen markii buu dilay maalinta dambe ayaa nin kale asagoo ninkii raranaya arkay wuxuu ninkan maxaa u raranaysaa markaasuu wuxuu ku yiri wariyaa awal baad shalay ninkii hore dishay ninkan ha isku dilin buu ku yiri wuxuu ku yiri doqona alla kuma gargaaro waxa weeye dadka marka runtii caadifad aan jirin sababtoo heesta jawaabteeda lama heli karo waxay sheegaysaana xaqiiqda marka waxay u tusayaan waji kale oo ay leeyihiin nimankaana waa qabyaalist aniga dadka heesta ila qaadaya anigu isku reera ma nihin waa dad kala nooc oo Soomaaliyeed nahay ma garata marka haddii anigu la leeyahay ninkaani waa reer qasax haddii lagu hayo dee anigu waxaan sheegi kale mar adiguna markhaati baad ka ahayd
2000 labada kun iyo saddex iyo tobankii markaan xamar taagnaa tuutaha aan sitay al-shabaab aan la dirinayay naftayda halista ku gashay wacyigelinayay ciidamada markhaati baad ku ahayd oo cabdullaahi waad nala socotay waa ka waraysay madaxweyne soomaaliya ka ah xasan sheekh baa ka ahaa soo ma maalintii la doortay 2012kiina waxaan ahaa abwaankii heesaha lagu soo dhaweynaya dowladda loogu dabaaldegayay ninkii sameeyey baan ahaa soomaalida joogta London way ogyihiin TV-ga Universal waa laga daawanayay markaan la madaxdii dalku inuu dooranay dalsan noogu fura runtii taageerada aan u sameeyay dowladdaas iyada ah wali dowladda u sameeyay ma jirto marka sidaa darteed waxaasi waa geeda isku xog weeye ayaan aaminsanahay waxaasna waxa ka jira ma jiraan imriga aan ku jiro iyo daada aan joogo iyo wacyiga aan ku jiray iyo waqtiga aan joogo iyo dhibaatada Soomaaliya qabiilku uu geystay oo intaasba qalbigayga kuma jirayso wax la yiraahdo qabiil sidaa darteed waxaan u doodayaa hooyada maskiinta oo ooyeysay diifku ka socdo iyo gabadha iskuulka intay aaday markay soo noqotay meeshii ay saxalay seexatay oo la burburiyay oo laga dhiga dagaan degaha aragtay ayaa aniga igubaya ma ahan waxa laga hadlayo meesha ima muuqdo waxa ii muuqda meel fog baan wax uga jeeda waaya xuseen dadku waxay leeyihiin ma jirin heese dhaliil ah oo ay kooxda qayladhaan soo saareen xilligii dowladdii hore maxaad la aamusteen mise waxaad leedahay ma jirin dhaliilo iyo xaalad aan heese u soo saarno horta dowlad kasta horta Soomaaliya ka dhalata dhaliil way lahayd oo kuma oranayo dowladdan dowladda ka horeysa waxay ahayd dowlad nadiif ayay ahayd kuma oranayo oo dadku waxay qaladaad badan oo fara badan oo iyadu lafteedu ay sameysay in kastoo hadda calool ku habsa ay tahay tan oo ay ka sii xun tahay iyadana dhaliilo way lahayd oo runtii waxa kamid ah qalbi dhagax dhiibidiisa kamid aha ayaa kamid ahayd oo runtii oo la qari karin laakiin waxa jirta xilli waqtiyadaas iyadaahi waxay ahayd laba waxyaalood isbarkaday baa jira waxa weeye iyadoo xilligaas iyadaahi jooqole oo walaalkay aniga ila dhashay ah oo kooma ku jiray taa markii laga soo tago marka iyadana laga soo tago markii la doortay farmaajo la doortay intaan la magacaabin xildhiba baalkii la magacaabin wasiiradii waxaana lagu soo qaaday annaga qayladhaan gaar ahaan annaga reer shira ah waxaana lagu soo qaaday weerar nala rabo in future-ka sidii farmaajo aanu waxba sheegi lahayn ayaanu lagu soo weeraray oo lagu aflagaadeeyey oo lagu qabiil xataa la yiri waa reer hebel iyo waa sidaan iyo waa kan iyo waa saas waxaa loogu talagalay in nala jilciyo oo wax kasta cabsi aan u samayno marka waxay noqotay qoolay inaysan biyo ku cabin qoor oo aan runtii anagu tusi karno markaan anagu aan rabno inaan heesi karno ma garata oo aan la dirqi karin waxyaalahaasa ka mid ahaa oo isbiirsaday markaad runta rabto wey marka waxaad la aamusteen ood hees soo saari weyseen waa inta hadda aad sheegayso intaan sheegayo oo la damcay in qoor qabasho niman ma garanaysaa social media ku jira ayaa niman siyaasiyiin oo hadda dowladda ka mid ah oo magacyo oo aad u fara badan oo qaar wasiirro yihiin ayaa noo soo adeegsaday runtii inay damcaan inay naga qaylisiiyaan oo nagu si aanu micnaha aan la yiraahdo wakaa kuwii ay reer qasaxas la ahayn baa ku qaylinaya loo yiraahdo annagu markaan aran inaan la dirqinayo wax inaan la dirqi karin ayaan annaguna saasay ahayd iyo ayadoo ninkaasu naga xanuunsaday inta waxyaalahaas oo dhan ayaa isbiirsaday xuseen dabcan adiguna waad noo caddaysay in aysan jirin suugaan aad soo saarteen xilligii dowladdii hore marka adiga oo u sababeynaya arrimo jira oo gaar idin ahaa dartood arrintaasi sow mid waaqici ah kama dhigayso doodda ka imaanaysa iyo dhaliisha dadka shacabka ay idin jeedinayaan 8 heesood waa qaatay ma ahan inaanan heesin ma ahan waa heeso badan baa qaadan wadaniyaana qaadan laakiin kuwa dhaliila ma aadan qaadinina qaar baa dhaliil ahaa hees baa ka mid ahayd heeso dhowr heesood oo ugu yaraan laakiin micnuhu waxa weeye nin horta meel waxa la ninka gabadhaada waxa la xaaskaaga u socda gabadhaada aan ku siiyo kama yeelayo laakiin heeso wadaniyo oo Soomaaliya caadiya waan qaadnay oo aad u fara badan oo runtii laakiin hees lamida mid hadda aad soo saarteen oo dhaliil aad ugu jeedinaysaan dawladda ma aadan qaadin
ما هيس دولة أنا أقول لك ما نقادين وحنا كقادين waxay ahayd iyadoo runtii sida aan ku sheegaba ay jirtay dhinaca caafimaadka uu naga jiray iyadoo runtii ujeedo kale in laga leeyahay aan dareemayo sidaa darteed aan tusayo qoorqabasho inaan biyo ku cabi karin oo qoorqabasho biyo aan lagu cabsi karin haddii micnaha waxaan aaminsanahay sida iyadaba layskaga kaayo dhaafi lahaa hataa wax kastaba dhib kastaba naga haysta ninkaas isbitaal ku jiray waa naga imaan lahay laakiin waxaa damcay xab siyaasadeed inuu lagu caburiyo si aanu dawladdaas markaas jirta aanu micnaha heeso mucaarada ugu qaadno marka waxay ahayd yihiin dadka micnaha dirqis qabyaaladeed camal baa naloo dirqinaya marka dadka qabyaalada lagu sheegaya iyagaaba na qabyaaladaynayaba heer waxaa la gaaray heesihii wadaniga aan qaadaya tuutaha aan gashanayay aad ogeyd laygu yidhaahdo dilaabuu ahaa askari buu ahaa siyaad barro u shaqayn jiray 94kii buu gabar la yidhaahdo dahabe hebel xaaji cagoole gabar halkan joogtaa la yiri isagaa madaxa ku dhuftay gabadhii markaan warisadana waxay tiri 94kii dawladdii salbalaar ayaanoo soos meel layga dhigaa askar ayaa madaxa xabad layga dhuftay igu sheekaysay marka heesii wadaniga aan qaadayo tuutii aan gashanayay askari buu ahaa jiro siyaad barre askari u ahaa mar 92kii waxa nin iyo egbo Soomaalidu badanaa way isku egnahay nin iyo egba waxa la yiri ninkaani 91kii dagaal buu ku jiray anigana 89kii baan waxbarasho Jarmalka u joogay waay dadkan aad leedahay waxay doonayaan inay sugaanteena nagu caburiyaan oo khiyaarka adinku aad leedihiin ay leexiyaan yaad ula jeedaa Xuseen waxaan ula jeedaa dad la soo adeegsay oo social media ka acleeya iyo niman siyaasiyiin oo ay soo isticmaalaan oo waa la dadkan social media waa la biilaa badana waa la biilaya waa dad baa biila oo siyaasiyiin wax siiya waay Xuseen dadka dhaliilay heestan hadda aad soo saarteen ee waliba tixda ka qoray waxaa ka mid ah abwaan guure oo aad isla tihiin bahda suugaanleyda Soomaaliyeed sideed u aragtaan tixda uu idinku dhaliid horta abwaan guure waa salaamaya abwaan Soomaaliyeed weeye abwaan guure waa shaqaale dawladda hadda jirtay iyo tii horeba shaqaale u ahaa tiyaatarkana waxa weeye waa maareeyo ka yahay marka dee shaqadiisa xoogaa jeebkiisu doonaya inuu maaragtay si adkaysta de wax kaloo meesha yaalla ma lahan marka wuxuu rabana uu dhalali karaa wuxuu doono laakiin annaga hadduu tiyaatarkii weynaa joogo fanaaniintana buu madax u yahay ha ogaado taas ha ogaado waaya marka idinku dhaliisha inuu abwaan iyo maareeyo guud idin yahay laftirkiina ma u qaadanaysaan waxa runtii de maadaama lagu magacaabay waa nin maareeyaa mas-uul weeye mas-uul marka aad tahana oo waliba lagugu magacaabo la leeyahay maareeyaha tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed markii la yiraahdo waa nin magacii fanaaniinta iyo abwaanada qaadanaya weeye marka waxa weeye abwaan walaalkii guura waxaan leeyahay waxa weeye xoogaa waxaad moodaa inuu fududaaday laakiin xoogaa jeebkiisa maaragtay wuxuu shilinkiisu ilaashanaya saans le ugu dambeyntii heestan aad soo qaadeen ma isleedahay waxay wax ka bedeli kartaa xaaladda dalka oo dhaliilaha aad jeedinaysaan iyo heestaba meesha aad u wadaan iyo cidda aad u wadaanba way qaadan doontaa oo waxbay ka bedeli doontaa wallaahi horta niyahow sideedaba qofka bini'aadanka ahi haddii aan qaladkiisa la qaban wuxuu ismoodaya inuu sax yahay waxa weeye marka waa in wax alla wax fanaaniintuna sideedaba waxay noqdeen wax iska aamusan iyo wax ayaga intii shilin la siiyo la yiraahdo ihes la yiraahdo iyada lafteedu inaan dib u soo noolayno fanaaninnimada inay awood leedahay inay quwad leedahay qarannimada Soomaaliya iyo xorriyaddii waxa sameeyay waxa weeye fanaaniinta Soomaaliyeed baa ka dambeeyay haddii si kale aan kuugu dhigo dawladdii siyaad barro ka horreysay waxa fanaaniinta kiciyay laan cruiser gara soo bari galay guuxiisa mood gobi inaad ku tahay geeska Afrika markii la lahaa markii runta laga hadlo micnaha waxay ku tusaysaa marka in lafteedu fanaaniinta inay meel kasta joogaan ay wadanka ay difaacaan waa ku waajib marka waan aaminsanahay mana joogsanayso sheekadu waa siday u bilaabatay weeye dadkaana waa dadka iyaga shacabka ahaa waxa weeye dadku de kulli indhargarad ma wada noqon karaan sidaa darteed wixii wax dareemaya inuu wadanka dhibaatada ka jirta ay ka aamusaan maahan siyaasiyiinta qaar ka mid ah sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur baa wuxuu yiri wadanka ummadda Soomaaliyeed waa inay u kacdo waxyaalihii runtii
waxaa ka mid ahayd iidan lafteeda nin dhirigeliyey horta heesta waxaa sameeyey nin cabdullaahi cali madoobe oo abwaan dhalinyaro ah heestii ninka gabre sameeyuu ahaa waa ugu mahadcelinayaa dhalinyaradii ila qaaday heestaan isla qaadnay sida cumar haybad iyo osi ninka la yihahdo cusmaan keenadiid iyagana waa salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeedna waa salaamayaa idinkana waa idin salaamayaa heesuhuna waa soconayaan haddii alla yidhaahdo dowladduna waa dowladdeennii dhaliisheedana waa sheegaynaa wanaaggeedana waa sheegaynaa hadda dhaliisheedii baa socota hadday hagaagtana waanu insha allah waa u heesi doonaa sidii awalba tuutahan waagii u gashanayay 2013 waayahay aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa xuseen shire jaamac oo ah abwaani fanaan soomaaliyeed sidoo kalena ka mid ah hormuudka kooxda qiladhaan oo hees cusub oo ay ku dhaliilayaan hogaanka dalka oo ay soo saareen siyaabo kala duwan ay bulshada soomaaliyeed uga fali celiyeen xuseen aad baad u mahadsantahay